بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد حربنا أن شرحنا فرق يقول هي limited liability iyo unlimited liability inta aanan u gudbin farqiga waxaan soo weydiinaynaa su'aal yar oo ah example kambanigaaga wuxuu qaatay deen haddii kambanigaaga uu deyntu qaatay iska bixin waayo maxaa lagu sameyn doonaa waxa lagu sameyn doono kambanigaaga waxa go'aamin doonta nooca kambanigaagu yahay limited liability miya ama kambanigaaga unlimited liability waay dan waxaan weydiinaynaa limited liability maxaa laga wadaa waay waxaan inaan limited liability waxa laga wadaa haddii aad deyn qaato deynteeda waxay ku xadidan tahay hantida kambaniga taalo waa meena maxaa laga wadaa waxaad siitay kambanigaaga hadduu lacag soo deensado oo deyntaas iska bixin waayo waxa suuqa la geyn doonaa la iibin doonaa hantida kambaniga taalo waay deyntaas waxa lagu bixin doonaa hantida kambaniga taalo lagu bixin doonaa waay dan waxaan weydiinaynaa haddii hantida kambaniga taalo ay ku filnaan weyso inay deyntaas bixiso maxaa la sameyn doonaa waay maadaama uu kambanigan yahay limited liability it means waxa waaye haddii ay ku filnaan weyso hantida kambaniga taalo qofkii deynta lahaa deyntaas wuu ka sabraa waay macnaha wuu cafinaa because of kambanigan wuxuu ahay limited liability it means waxa waaye deyntan qaadano waxay ku xadidan tahay hantida kambaniga taalo macnaha heshiis waa waxaan because of hantidaas kambaniga taalo haddii la iibiyo oo suuqa la geeyo ay deyntaas bixin weyso it means waxa waaye qofkii deynta lahaa wuu ka sabri doonaa waa lacagtaasito okay dhinaca kale hadaa u imaano unlimited liability asagana maxaa waaye unlimited liability waxa waaye deyntan waxa waaye mid aanan meelna ku ekeen waaye meelna ku ekeen maxaa laga wadaa waaye example-kii hadoo kaleeto haddii kambanigaaga uu deyn qaato oo deyntaas iska bixin waayo maxaa lagu sameynaa hadduu kambanigaagu yahay unlimited liability company hadduu yahay it means waxa waaye deynta aa qaadatay haddaa bixin weysid hantida kambanigaaga taala marka kuwaad suuqa la geynaa haddii hantida kambanigaaga taalo uu suuqa haddii la geeyo oo ay ku filnaan weyso inay iska bixiso lacagta deynta ahayd then hantidaada shaqsiga ahaa suuqa la geynaa waay then waxaa isweydiinaynaa hantideeda shaqsiga haddii suuqa la geeyo ay ku filnaan weyso inay deynta bixiso maxaa la sameynaa it means waxa waaye xabsiyaa lagu geynaa ilaa aad iska bixisid lacagta deynta lagu laabo it means waxa waaye deyntan waxa waaye unlimited waay condition waxa waaye inaad bixisid leewaay kaliya haddaa bixin weysid xabsiyaa lagu geynaa waay haddaan si kale u sheegno farqiga waxaan dhahaynaa markaa joogno limited liability-ga deyntan qaadanay waxaa liable u ah hantida kambaniga taalo kaliya waay haddii uu kambanigeynu yahay ama kambanigu hadduu yahay unlimited liability it means waxa waaye deyntaa qaadatid waxaa liable u ah hantida kambaniga taalo iyo shakhsiyaadka kambaniga iska leh waay it means waxa waaye hantida kambaniga taalo haddii la iibiyo oo ay bixin weyso deyntaas shakhsiga kambaniga iska leh hantidiisa shakhsiga ah suuqa la geynaa waay si loogu bixiyo lacagta deynta ah waay okay intaas waxay ahaayeen farqiga u dhaxeeya limited liability iyo unlimited liability. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.